waayahay bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan daawadayaal si kastoo aad inoo maqlaysaan inoona daawanaysaan halkan waa radio baraawe stuudiyaha dhexe ee magaalada baraawe barnaamijka madasha martida oo toddobaad walba ka baxa radio baraawe waxaa toddobaadkan marti inoogu ah gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka horumar iyo midnimo qaran ee loo soo gaabiyay MBU mudane Axmed Maxamed Busuri ayaa marti inoogu ah dabcan waxaan markaasi ka wareysan doonaa marxaladaha siyaasadeed iyo xaaladaha doorashooyinka ee dalka iyo sida uu isaga laftiisii ugu dhiiraday inuu siyaasadda kusoo biiro waxaa halkan ku sugan dhalinyaro aqoon-yahanno ah sidoo kale barayaal ayaa ku sugan iyo qaar ka mid ah aqoon-yahanada deegaanka oo iyaguna markaasi su-aalaha weydiin doona martida madashan inugu casuuman caawa waxaan marka hore soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka horumar iyo midnimo qaran mudane Axmed Maxamed Busuri mudane kusoo dhawo barnaamijka waa ku dhawahay waana ku mahadsantahay Faad anigoo aad ugu faraxsan inaan maanta ka soo qayb galo radio Baraawo insha Allah dadka meertada meesha joogan aadan ugu salaamayo dhamaantiin waayahay waxaan jeclaan lahaa markan inaan ku weydiiyo su-aasha ugu horeysa ee barnaamijkeena oo ah taariikhdaadii intaan gudagalin marka hore maxaa ku jeclaatay inaad siyaasadda kusoo biirtid siyaasadda baahay uma qabin marka hore laakiin waxay ugu kaliftay duruufo jirta aawadeeda dadka siyaasiyiinta qaarkooda markay aragtid ama hay-adaha dawliga waxyaalaha society ay u baahan yihiin oo mar walba aysan ka heli karin dad shacabkooda iyo meesha aan ka imid oo mar walba wasiirka ama xildhibaanka ama counselarka deegaanka oo mar walba tahmiyad iyo ahmiyad gaara siinayo shacabkiisa oo aan caasimadii dalka iyo dowladii aan ka waynay markaas waxaan iri niyow haddaad dibadda ka qeylisaan waxba idin faa'iideyso ka mid noqo siyaasiyiinta wax bedeli doono mustaqbalka dhow shacabka u shaqeyn doono dhalaanka dumarka waayeelada social sectorka aan takhasuskayga ahaaba sideedii hore martaas ay ugu dhaleysiiyey dibadda haddaan joogan waxaan ogaaday inaan waxba kusoo kordhin karin ilaa inaan gudaha soo galo maahan sidaasaan u imid waxaan rajeynayaa in qofkii wax bedelay inaan noqon doono insha Allah wax badan kusoo kordhin doono hab dhaqanka iyo hab dawliga Soomaaliyeed insha Allah waayahay dabcan sidaad ka warqabtid dalka hadda waxa uu bilaabayaa nidaam cusub oo dimuqraadiyad ah in dib dalkii loogu soo celiyo nidaam doorashooyin qof iyo cod ah adigu sideed u aragtaa nidaamka doorashooyinka hadda socday qof iyo cod ah nidaamka waxyaalaha kale ay ugu dhaleysiiyey ahayd inaan imaado wadanka maadaama doorashooyin la qabanayo la yiri qof iyo cod waxaan baranay doorashooyinkaas reer galbeedka ku aragnay inay mid xornimo leh tahay qofka codkiisa oo wax ku qaadan karo mar walba wuxuu danaynayo haddii tii aan soo aragnay dastuurkan dowladda federaalka u degsan iyo dastuurka golaha guddiga doorashooyinka waxa aan ka qabno ama aan ka aragnay dastuurkooda ay sax tahay ay ku dhaqmi doonto doorashooyinka wax weyn ayaa Soomaali iska bedeli doona insha Allah laakiin haddii musuqmaasuq uu jiro kudka guur noqonayna sida ay socon doontaa marka taasaan ugu dhaleysiisay inaan nimaano aad baan u danaynayn doorashada qof iyo cod hadda waxaan u tartamayaa xildhibaan koonfur galbeed anoo kasoo jeedo degmada Baraawo ahaan laakiin ku dhashay Sheegani laakiin tolahan waxaan kasoo jeedaa degmada Baraawo markaan arkay in dhowr jeer la yiri caasimadii Baraawo koonfur galbeed waxay noqonaysaa caasimadeeda Baraawo aan waxna suurtagelin dhibaatadeena ay dadkii ku badatay ayaa waxaan iri meeshaan tegi karo wax ka soo bedeli karo waa meeshaas marka hore meeshaan imaado doorashadan waxaan rajeynayaa sida dastuurku ku qoran yahay in doorasho xaq iyo xalaal ah inay noqoto
haddii midii hore aan muqdisho ku galno gobolka banaadir codkaanada la qaatay ururkayga horumar iyo midnimo qaran waa beri aan kaga soo baxnay 1968 cod annagoo helnayna la yiri maadan helina tirsigii iyo wixiina naloo qeexay la yiri nidaamka tirsigaas waxaa iska lahayd JSB aanan ka filanaynin JSB inay maadaama iyada ka timid doorashadan qof iyo cod inay musuqmaasuq ay samaynayso maan ka filaynin taa darteeda ayaan waxaan niri bal aan aragna koonfur galbeed waxay samayn doonaan kulley sansaantii astaanta aan shalay ka arkay banaanbaxi aan aniga hormoodaya amaan horjoogaha ka ahaa waxaan aragnay xurnimaa jirtaa liida doorashadan laakiin JSB oo qoryo wataan oo baabuurtii xataa ciidan labisan daraaskii ay wadaan waa yaabay waxaan irinay matalo tii gobolka banaadir ee waa beri leeda kaga qaatay barawn laga qaadan doonaa marka codeeraan u dhihi doonaa insha Allah inaan ogolaan doonin laakiin waxaan rajeynayaa doorashadan qof iyo cod inay noqoto mid daacad ah ay dhabka tahay dowladda federaalka waayahay marka adigu waxaad tahay gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka horumar iyo midnimo qaran sidaad ka dhawaajisay dabcan hadalkaaga waxaa laga dhugan karaa in shaki badan uu ka jiro dhanka doorashooyinka marka maxaa hadda kugu dhaliyay iyadoo doorashadu ay ka dhiman tahay saacado qura in arrimo shaki ah uu idinkala soo dhexgalo arrimaha la xiriira doorashooyinka khaasatan urur siyaasadeed sidiinu kala u dhisan idinkuna shakiga horta marka hore tii waxay ahayd gobolka banaadir ka dhacday laakiin waa kaga nimid waxaan niri qalad waayo maadaama wixii uu urud yahay doorashada dalka Soomaaliya uu ku cusub yahay qaladkaas waa dhacdaa aan ka socono ta kale shaki gelis waxay ahayd annaga maamulaanahay ururka horumar iyo midnimo qaran waxaa hoggaan u ah gudoomiye u ah ururka horumar iyo midnimo qaran Sheekh Xasan Sheekh Aadan weligiisa nama dhihin meeshaad aragtaan in lagu dhibo caqabad sameeyo annagoo sacablee aan soconay dadka iyaga aan u gudbaynaynay laakiin markaan aragnay ururka JSB oo qoryo wato haddana gawaarideen dharbaaxa ay dhahay wareer jidka ka leexdo ay waxaan iri tolo matiye samayn doonaan haddana marka insha Allah waxaan rajeynayaa cawashadeen waa gudbinay in wax laga bedeli doono haddii ilaahay baad mahadsan tahay dabcan dhalinyaro badan oo aqoon-yahano ayaa fadhiya horteena iyagu waxaan rajeynayaa in su-aalo badan maskaxdooda ay ka guuxaysa ay doonayaan inay adiga ku weydiiyaan ama ay kula wadaagaan inta aanan iyaga dhankoodii u gudbin ururka ama urur siyaasadeedka horumar iyo midnimo qaran yoolka uu ka leeyahay dalkan waa maxay hadafka ururka horumar iyo midnimo qaran uu dalkan ka leeyahay waa maxay haddii doorashadu uu ku guuleysto muhiimadda aan u nimid waxay ahayd horumar inaan keeno midnimadii go'day reer Baraawo ama reer Koonfur Galbeed midnimadoodina soo celinay tafaraaruqii nagula dhex abuuray inaan ka nimaano haddii ururkan uu ku guuleysto doorashada golaha deegaanka ama doorashada sideeda gobolka Koonfur Galbeed deegaankeeda kulligooda waxaan aaminaynaa inaan marka hore shaqo abuur fiican aan bilowno waxbarashada inaan tayeyno amniga inaan xoojino Koonfur Galbeed waxay caan ku tahay dalagii kalluunkii iska badaa hadda petroolka aan helay dalagii aan abuuran jirnay waxaan soo maray degmada marka markaan soo maray buundada aan arkay dekadii laga dhoofin jiray mooska xilligii Soomaalida iyo Soomaali fruit oo birihii dhagaxay iska dhaafay birihii kaliya taagan
waxaan idhi goorma dhisi doonaa dekedaan macmalka aan deked caalami ka dhigi doonaa aniga ahaan anugu oo ururka mas-uuliyiinteeda ka mid ahay muuskii ilaan dhalinyaro badan arkaysa shaqo la'aan ah maanta beerihii haddii loo dareeri lahaa muuskii la tacban lahaa galeydii bambeelmadii qudaartii oo dhan idinla qaadi jiray qof walba shaqo ayuu heli lahaa iyo dhaqaalo ku filan kalluunkii sidoo kale dadkii ganacsatada weliba dadkii doonleyda markaan kasoo qabto shidaal qaato badda galo in muddo dheer ku maqnaado si ay kalluun usoo qabsadaan suuqa markay keenaan ayaa canshuur lagu dhiftaa haddana iyadoo canshuurta laga qaadayo dhismana looma geliyo daryeelna looma geliyo iyagoo rafaadsana rafaad kale ay ku jiraan weliba oo aan waxba gacba ka heleynin ka walaalka ee soo iibsanayo kalluunkaas ee miiska saaranaya lacaga laga rabaa war ma heshay ma gadi iyo ma helin aan la yeelin waa ogolnahay taxi nagala qaado canshuur aan bixiyaal aan noqon canshuurta bixino laakiin waa inaan bedelkeeda helnaa ama caafimaad bilaash aan helnaa ama waxbarasho bilaash aan helnaa Baraawe waa wada ogtihiin isbitaal weyn ku yaala isbitaalka dhaqaatiirta ka shaqeeyo ama dadka nadaafadda ama inta ka shaqeysa isbitaalka waxa laga waxay ku leeyihiin 6 bilood maanan helin salary lacagihii ay qaadan jireen biilkii maxaa dhacay markaad tiraahdo waddanka canshuura la bixiyaa xaggee aadaa mana la xisaabtami kartid dowladda waxaa nidaamkan doorashadan qof iyo cod oo xuri xalaalka u dooranay waxaad tihiin dad cod bixiyaal ah waa nala xisaabtami kartiin war shalay codkeena idin siinay taxina waa dhiibnaa canshuurna waa dhiibnaa waddankiina saas buu u baaba'san yahay oo isbitaaladiina caafimaad fiican kama helno wadooyinkiina waa naga uskag saasay tahay guri walban lacag laga qaado war annaga wixii aan idinkaan idin dooranay aawe wixii aad noo ballan qaadeen dadka dhihi lahayaa tiin annagana dadka samayn lahayaa nahay oo ka daacad ah ballanqaadyada ay sameyneen insha allah Okay, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان bulshada halkan fadhido iyo maxalada madaxda hoggaanka ama urur siyaasadeedka horumariyo midnimo qaran marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaan aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo xafladan aadka u qurux badan ama madashaan martida aadka ugu qurux badan oo su'aal lagu weydiinayo gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka horumariyo midnimo qaran saddex su'aal ayaan wataa inta su'aalaha u gudagelin magacaygu waa Muxudiin Maxamed Xasan waxaan ka mid ahay bariyaasha degmada Baraawe caasimadda Koonfur Galbeed gudoomiye saa ogsoonahay ba waxaan maxalliga u taagantihiin inaad qabataan ama xilka madaxweynaha maxalliga Koonfur Galbeed anigana waxaan ku suganahay degmada Baraawe su'aasha koowaad marka waxaa idin leeyahay degmada hadda aniga aan joogno ma lahan jaamacad ma lahan ardayda hadda wax soo barata waxay ku qasban yihiin inay online wax ku raadiyaan ama ay safraan marka ka idanka ahaan markaa ku guuleysataan maxaa idinkaga qorshaysan ardaydaas oo foonfooradaas dhammaynaya aysan awoodin inay safar aadaan inaysan diyaarad raacin karin maxaa aysan awoodin maxaa idinkaga qorshaysan su'aasha labaad waxay tahay saa ogsoonahay Baraawe waxaa ku yaala isbitaalka weyn ayaa ku yaala isbitaalkaas ma lahan wax tayaysan ama daawooyin ama habkii laga rabo uguma maxalliga uma shaqeeyo dad badan dan yar ah oo wax aan iibsi karin marka ka idanka ahaan maxaa idinkaga qorshaysan su'aasha saddexaad waxay tahay degmada waxaa joogto dhalinyaro joogto dhalinyarada saa ogsoona intooda badan waxaa waaye maxalliga shaqo ma haystaan ka ururka ahaan markaa guuleysataan maxaa idinkaga qorshaysan maxalliga
aad qorshihiina inaad u qabataan degmadaas. Su-aasha afraad waxay tahay ma israaci karaan okay ama sintii walaalkay Muxudiin waa ku salaamayaa markii hore waan ku faraxsanahay adigoo barra ka mid ah barayaasha magaalada Baraawe nala joogo madashan arrinka hore oo uga hadla haddana waa ku soo celinayaa waxbarashada dugsiga sare waa wada booqday markaan imid tayada waxbarashada waa arkay waxaan u ballan qaaday jaamacadaha meelaha kale loo tegi lahaa inaan haddaan ururkayga ku guuleysto inaan jaamacadda inta ka sameyno haddii aan ku guuleysanna ururkeennaga still waa idinla joogi doonaayo iskuul farsamo gacanaan bilaabi doonaa maadaama oo dadkii familiga ay awoodi karin jaamacaddii dibadda ama bannaankaba magaalada Muqdisho loo diro annaga ka urur ahaan haddaan ku guuleysan anigoo samafale ah inaan sameeyo hirgeliyo iskuul farshaxan ah farsamada gacanta ahaada ilaanta makeupka kabarista photographerka korontiista plumbers tubista iyo faryaamo intaba si qofka bini'aadamka oo nolol maalmeedkiisa ugu soo saaran karo xirfadaas insha Allah taas waa taas haddii aan ku guuleysano waxa ballan ah oo garanti ah oo hubaala inaan jaamacad ay noqoto meeshii loo soo doonan lahaa jaamacad kaas waa idinku bishaareynaya insha Allah jaamacad tayo leh inaan keeno macallimiin ama professoro tayo leh aan keeno ay luqadda Soomaaliya Carabiga Ingiriiska ku bixi doonto insha Allah ta kale hospitaalka iyadana waa ka hadlay haddana ku soo celinayaa مسؤوليين هوسبيتال كما شغالة هوسبيتال كشغال هوسبيتال كويني براو وحيقوم مقالة إلى لحبل إنه يشلع قادا أما هديس كبدنا إلى 6 بال طبعا بال أوكي ونسيب دارو ودك سوى الدولة جيرو نقالة جستو فدراليزم كأيسان أي هيد إن قيبت هذا اللوسو قد بيو كوفر قلبات ما قان إلا سوق بي إينا لسوق بي انتاس مكشيكين كلام مرة بينا نهوش استحقره لكن وحي هاد دقان والبا وفدرال كمدا وجدوا ليه السند لها وعافماتك وحبرشاد وغوطة لقلت هي أمني هدي هلين واحلين وهي سكر مستعمالا هدي أنا السينين أيضا هو حال كلام لكن أنا قلت هيدا مركان كهذا الله مرة من المقرن وحواجب نواه وحيالها عن فيرينين وحربنا ضدك وحبرشوا عافمات كودا نرشوا إن كوبعنا أن قصون النقنو ورودي أم حزبي ودن كان مرة بطلدون أن بطلدون تيادا أن ربنا إن أمبلان قادنا إن سمين waddanka waxaana wareeriyay NGO oo xukuumadda ay soo dhex marayso dhaqaale bannaan ku keensanayso eena yiri dhulkeenii beeraha ee soilkii fiicnaa lahaa mineralskii badnaa lahaa wixii oo idil ayaa waxaa la yiri composekii iyo soilkii dhulka ku jiray wax fiican ma aha waxyaalaha cudurka keena waa nagala dhaadhiciyay soil kale bannaanka laga keeno nagula beeray ee aad arkaysa raashinkeena iyo qudaarteena inay tahay mid aan tayo lahayn waxaas lana ka soo gudubnaa rabnaa beerihii aan falano kalluunka laftiisa markii lasoo qabto ee wiilasheena kalluumaystayaalka ay badda galaan ay ka soo saartaan kalluun badan ما أودي كلام وأوجين كلام بدنا ده سوق عطان ما جدي كلام سوق مهلا يعني وقت يكلم ما يشتغل على كلام ما وحلاقيها بدون والبلحم تضوين وسوق بصراحة كليه ويرا هذا أتليست أنت وجد بيسا لكن فرجديرو تلاجدو هدي اللي سمعيه دول كوا دول وين باحد له لو كيدن قرين كرو حولي ودمعنا يعني إذا لفت سلون عفيه دلقي ماله
waxaa la leeyahay beer ma biyo ma noo soo di'in roobna ma soo di'in wabiyaan leenahay alternative aa jiro ceelalaha la qudan karaa excuse ma roob ma jiro keliya waddanka ceelalaan leenahay wabiyaan leenahay matooraan saaran karnaa biyaha si fiican u firdhinayo waddamadan khaliijka markaa aragto oo desertiga ah meeshii desertka ah haddii beer lagu beerayo dhulkeenii soilka lahaa miyaan wax lagu beeri karin number one biyaha meesha ay ka helayaan ceelka ay qodanayaan matooro waxay saartaan caterpillars about 400 above horsepower leh annagu uma baahni matoor saa xoog leh wabigaa kasoo suranaysaa in badan oo tuuraya biyahaas ee dalagii lagu abuuri karo marka shaqo abuur badanaa la helayaa electronic systemka hadda generatoraan wada isticmaalnaa korontada ah ida lafteeda gaaskeeda qaali waayo markii saan oo kale noqoto oo hadda ay dhulkan shidaalka laga soo mari jiray oo xiran yahay hadda ee shidaalkii uu kor u sii kacayo iyada lafteeda waxaa muhiim ah solar systemkan dhalinyarta in la wada baro ama greenskan treadmillka systemka si u shaqeynayso iskuulahaas electriga la baro ay wadankii dhan aan solar ka dhigno ka kaaftoono petrolkan aan u isticmaalin dieselkan u isticmaalin generatorka budgetkina raqiis oo noo noqonaya waxyaalo badan aan rabnaa naga guuxaayo maskaxaan nagu jiro oo rabno inaan bedelno insha allah waqtiga ugu dhow codkiina muhiim noo ah nasiya na doorta insha allah waa idin daryeeli doonaa haddii ilaahay weli barnaamijka madasha martida ayaad la socotaan dhegaystayaal daawadayaal waayahay markan weli waxaan siinayaa dhalinyarada aqoon-yahanada ayaan siinaya waxaan markaasi ka codsanaya si aan waqtiga usoo koobno in su-aalaha iyo jawaabuhu ay assalaamu calaykum anigoo ah xaliimo xasan cali meeshaan waxaa rabaa inaan su-aal ka weydiiyo ogaanka horumar iyo midnimo qaran maxaa shacabku ku qasbay inay mar kale aaminaan hoggaan cusub hoggaanku waa muhiim in la is-aaminaan waa muhiim haddii cilado hore ay dhacday qaladaaduna ay dhacday keliya uguma dhicin ummadda soomaalidana ay gaartay ayay dhibkaas soo gaartay annagaa ka mid ah dadka annaga anagoo jecel rabno ay nolol raaxada ku jirno ay dagaalahay waa qaxna waddankeena ayna xuna u qaxnay dad baa ku nool istiiloo Soomaali ah laakiin anigu waa soo laabtay waxaan u soo laabtay waxaan rabaa wixii qaladaadkii hore dhacay ee aan iga guuxayo idinkana idinka guuxayo in aan u noqdo hormuud qofkii bedeli lahaa insha allah keligay maaha aniga hogaankeyga iyo ururkan horumarinta waan arki doontaa haddaan ku guulaysano in wax la taaban karno aan bedelno oo ay noqotaan idinka dhama siyaasiyiin dan u shaqeeyo ummaddan u shaqeeyo insha allah diintan u shaqeeyo magacayga waa bint shariif maxamed oo kasoo jeeda koonfurta galbeed gaar ahaan magaalada Faraawo xafladan dhalinyarada iyo horumar midnimada iyo horumarka hal su-aal aan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha sidee nabad iyo horumar isku raaci karaan sidee horumar iyo nabad isku raaci karaan waxaan u maleynayaa bint inay ka wada sidee horumar iyo midnimo isu raaci karaan mise horumar horta maba imaan karta iyadoon midnimo la haysan nabad nabadda waxay ku imaan kartaa inaan ka shaqeyno horta midnimadeena nabad ma imaan karto iyadoon midnimo jirin aniga adi haddaan colaad nahay midnimo aysan jirin horumar ma imaan karto kasoo qaba anaga adoo deris nahay ee ciyaalkanaga ay mar walba isdhibaan ee aanan ka hadli karinba
inaan ilmihii annagii dhexdeena nabad dhigno oo aan midayno derisnimadii barno markaan wada sameyno taas ay midnimada timaado ayaa waxaan nahay dad wax wada qabsan karo markaan wax wada qabsanana horumar ay imaanayso horumarka markay timaadana qaran aan dhisan karnaa wanaagsan waxaan hadda wardaynaa taas waa magacaan horumar iyo midnimo qaran aad arkaysid waa laga soo shaqeeyey mar walba ninkii odayga ahaa ee ururkan mas-uulku ah Sharaf Xasan Sheekh Aadan ilaahay qaransiiyo wuxuu yiraahdaa hadda markii madaxweynihii hadda u dambeeyey uu ka baxay deegaanka ama xukuumadda ee la yiri odayntii waxaa la tagayaa koonfur galbeed iyada laga bilaabaya la yiri iyada laga bilaabaya iyadoon la heshiisinin dadkaan la wada heshiisinin mar walba wuxuu ka hadlaa heshiis nabadeed heshiiska nabadeed markay dhacdo ayay hiigsi wanaagsan ummadda helaysaa ayay horumar gaaraysaa ayay midoobaysaa ayay qaran noqon kartaa marka insha Allah taasaan kaga jawaabayaa waxaan u maleynayaa inuu waafiyo jawaabtaas waayahay gudoomiyaha uu mahadsan yahay dabcan madasha martida ayaad weli la socotaan gudoomiye ku-xigeenka ururka horumar iyo midnimo qaran ayaa markaasi madasha marti inoogu ah toddobaadkan dabcan weli waxaan siinaynaa dhalinyarada da'da yar ee aqoon-yahanada markaasi doonaya in gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka horumar iyo midnimo qaran ay su'aalo weydiiyaan maadaama ururkan uu yahay ama uu ka mid yahay ururada ugu cadcad hardanka adag ee ka dhaxeeya ururada siyaasadeed ee dalka ka jira waayahay waxaan siinayaa mid ka mid ah dhalinyarada halkan ku sugan fadlan magacaaga ku bilow saxafi Fuad Shawbni Cafe sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha oo naga ajiibay codsigeena ahaa inaan su'aalo weydiino anagoo ah dhalinyarada aqoon-yahanada halkan madashan kasoo qayb gashay mudan gudoomiye waxaan wataa hal su'aal su-aashaas oo ah urur siyaasadeedka horumar iyo midnimo qaran dabcan inta hadda aan wada fadhino ballanqaadyo ayaa jiro oo ay sameynayaan ma jiraan wax qabad ah oo bulshada loo qabtay oo beri ka maalin ay idinku qiimeyn karaan shacabka oo idinku dooran karaan aad u mahadsantihiin Ustaz Xasan waxaan u maleynayaa barayaalka inaad ka mid tahay deegaanka maasha Allah bara walba wuxuu isu dayayaa meesha uu joogo ku yaraadee meel ka weyn inuu gaaro maasha Allah nacam ururka horumar iyo midnimo qaran wax ballanqaad ee hore u sameysay ee ballanqaada waa jira Muqdisho waxaan ku leenahay xarun weyn oo aan ku tarbiyeyno ardayda yaryar ee aqoonta aan quraan ku barno iyo akhlaaqiyadkooda iyo maadooyinka af Soomaaliga gelin qayb ka mid ahna waxaa lagu tababaraa hablaha yaryar iyo wiilasha yaryar qaar iskuulka aan awoodin inay wax ku bartaan ay isleeyihiin hadda kama gaaran inaan wax baran laakiin farsamo gacan aan rabnaa waana shaqaysaa waxaa qalin jebisay dufcadii saddexaad oo hadda qaarkood ay shaqaystaan meesha ugu yar ay lacag ka heli karaan waa shandadaha gacanaha lagu tolo dunta crochetska dunta waxaan siin jirnay $2 ay ku iibsadaan 2 kalar oo dun ah cirbadooda way barteen way sameeyaan iyaga iibiyo hadda qof walba waxaan ku xiray wiilasha TikTok-leyda ama gabdhaha TikTok-leyda u advertise gareeyo $2 markay ku iibsadaan dunta 6 ama 8 ama 5 wax un bay ku iibiyaan maalinkii hal xab ay samaystaa $3 ku filan ama 4 ama 5 waxay ka helaanba reerkooda
yes waa sameynay alxamdulilah intan waa ka sameyn doonaa waxaa kaloo jiro hadday macalin xudiin oo maleyna caafimaadka waxay iga weydiiyey daawooyin waddanka markaan imaanay samafalaan u imid 2 mashiin oo dialysis machine aan keenay 2 mashiin oo dialysis machine aan keenay xamar oo yaala muqdisho waaba haystaan laakiin hadda markaan arkay baahida shabeellada hoose gaaraan markii baraaw waxaan ku go'aan ku gaaray midna markii inaan dhigo midna baraaw aan keeno maxaa dhacay dadkay baraaw iyo marka ma awoodi karaan inay muqdisho ku tagaan dialysiska ilaa keliyaha laga nadiifiyo maalinkii qarashkii oo badan safarkii oo dheer marka insha Allah taasna waxna waa sameyn waxna waa wada inaan sameyn waana dhameyn doonaa hadii Alla mar walba waxaan rabnaa codkiina waa guusheen codkiina inaan nasiisaan wadan walba waxaa horumaraya dhalinyarta waa udub dhaxaadka laf dhabarka dalka idinkay dalkan idin baahan tahay idinkay ku tiigsan tahay idinkay idin doonaysaa inaad u hiilisaan dalkan insha Allah codkiina nagu heeliya waa idin aqabtiri doonaa haddaad doorataan aadan idin daryeeli doonaa insha Allah waayahay gudoomiyaad baad u mahadsan tahay waxaana mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba kaaga mahadcelinaynaa ajiibadaada jiibtay codsigeedii ahaa inaan markaasi kusoo fariisano bulshadaada si ay su-aala ku weydiiyaan jawaabo waafiyana ay kaaga helaan mar kale ayaan kaaga mahadcelinaynaa dabcan waxaa tahay hogaamiyaha keliya ee ka socda ama matalaya urur siyaasadeed markaasi aan ku caasulno barnaamijka madasha martida ogolaadayna in dhalinyarada iyo aqoonyahanada ay soo fariistaan su-aalana ay weydiin karaan dabcan taas waxay tusinaysaa yoolka aad doonaysaan inaad hiigsataan heerka uu gaarsiisan yahay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dabcan waxaan jeclaan lahaa in aan dhalinyarada qaarkood aan ka gaarsiiyo bal su-aalaha markaasi iyagu maskaxdooda ka guuxaya oo ay weydiinayaan gudoomiyaha urur siyaasadeedka horumariyo midna maqaran dabcan barnaamijkan toddobaad walba ayuu ka baxaa radio Barawe dhageystayaashu waxay nagala jaan qaadi karaan 89.5 FM halka daawadayaashuna ay nagala socon karaan mareegta internetka aan ku leenahay radiobarawe.com gudoomiye mar kale aad baad u mahadsan tahay dabcan haddii dhinacii tacliintii waxbarashadii wax lagaa weydiiyey dabcan hadda waxaan u malaynayaa in mid ka mid ah dadka caanka ah weliba dhalinyarada caanka ah ee martidan madasha ku casuuman isaguna qaybka ay kasoo qayb galay inuu doonayo inuu su-aal ku weydiiyo waayahay اسمي محمد أحمد حسن dadka dariskana waxay ugu yaraan qurxo marka su-aasheedu waxay leedahay ku dheereenay maadaama aad jeclaystay inaad siyaasiyiinta ka mid noqoto maxaa ka dhiman oo aad kusoo biiran lahayd dadkan aniga futaxan oo aqaanaa caato waxaan kusoo biirin doonaa insha Allah habsamo socod talo wadaag oo shacabka iyo dowladda ay mar walba wada tashan doonaan haddii Ilaahay idmo iyo daacadnimo in loo wada shaqeeyo dowladda gaar ahaan insha Allah ururkayga horumariyo midnimo qaran haddii Ilaahay uu kala noqdo waayahay haye yaa kale waayahay markan alcoboy oo isagana ka mid ah tiktokerada ugu caansan dabcan waxaan u malaynayaa in 1 million flows uu haysto waayahay alka ayaan kusoo dhaweynaya markan bal saan u maqalno su-aasha madaxiisa ka guuxaysa أولاً مجيء محمد عليه السلام دتك وحيي قانن عالك وحنا صاحبكيسا ay qurxo waxa weydiin lahaa gudoomiyaha dhalinyaro badan oo waxa jirto siyaasadda Soomaaliya kan iyo jabeen sidee kalsoonidooda dib loogu soo celin karaa oo aniga kow ka ah alkaboy qurxo saaxiibkiisa aad ku salaamaya adigan ma labaad maadaama aad ka mid tahay dadkan aad u taageero
quruxoo saaxiibkiisa alkabooy aada ku salaamaya mar labaad waxaa tahay dadkan aada u taageero waxaan ku leeyahay inaan dhalinyaro oo firfircoon ambition iyo vision leh ayaa tahay ha ka qalbi jabin siyaasadda marxalad badan aan soo marnay dalkeena meel fiican aan joognaa inay kasii fiicnaato maaha inay dib u dhac ma dhici doonto insha allah weliba waxaan ballan qaadaynaa haddii aan ku guulaysano doorashadan qof iyo codka la yiri ilaahay runa ka dhiga sidaan jecelnahay in allah ka yeelo insha allah waxaan kuu gudbin doonaa meeshii ahayd wasaaraddii fanka martidii madadaalada ee dalka soomaaliya insha allah ayaad qayb weyn ka noqon doontaa maadaama cod lagugu yaqaana aada leedahay oo qof labaad ah adig kugu dhex jira qayb badan baa idin rajeynaya insha allah waayahay guud ahaan barnaamijka madasha martida ayaa halkaasi noogu idil oo uu marti noogu ahaa gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka horumar iyo midnimo qaran mudane axmed maxamed busuri waa hogaamiyaha ugu horeeyay ee markaasi ogolaaday naga aqbalay in uu dhalinyaradiisii bulshadiisii soo hor fariisto kadibna ay weydiin karaan su-aalaha ay markaasi qabaan oo maskaxdooda ka buuxaya mudane aad baad ugu mahadsan tahay aqbalaadaad naga aqbadashay waan kaaga mahad celinaynaa guud ahaan barnaamijka intaas ayuu inoogu idilyahay tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa inta aan toddobaadka xiga ka gaari doono iyo barnaamij midkan lamid ah sidaas iyo nabadgelyo